bini aadam inuu isagu iska warramo weligiis ma warramin intaan noolaa nin badan baa ama TV ama qolo jaraa'ida ama qolo raadiyo waa ii yimaadeen oo ku waraysanayna weligeyna war ma bixin weligeyna TV ma tegin waxaa dadku daawadaan masaajidda un bay ka qaateen cajaladaha yaalla dee waxaan islahaa cali markuu iska warramo aad ka dambaysid calina diid inuu warramo marka wax badan oo idin sheego runtii ay idinku kordhinaysaana ma jiro wakhtigiina la lumiyo maaha أنا رجع هالكن فردي وكود الدعوين أنا ملايني الشيخ محمد عمر ملاس كود الدونا هاي مصطفى حج إسماعيل هارون بالله هذا غير وده دابا كان شيء بهاي حاجي باو كوما قعديرا الشيخ وها أو هارون بالورن شري أو يقدم بيا أو يوسف بالورن شري غير علماء دي كتحن أيان كان الشيء غيرهان قبل كبروا عن كل شيء وقتي استعمار كان دشay intii aan dawladda Soomaaliyeed daranin dadka geedka hoostiisa ku dhashayna waa ka mid ahay inkastoo aabahay Allah u naxariisto 45 sanadood wacdan degan 1963 buu ka soo noqday laakiin dhaqanku wuxuu ahaa in islaamaha loo diro baadiyo ay baadiyo ku dhashaan iyadoo la diidan yahay dhakhtarka iyo ragga joogiya waxaasi aanay islaamuhu rabin ee loo diro hooyadeedo baadiyo joogta inay baadiyo lagu soo umuro intaan walaalaanay nin qurana gaga dhashay cadan intayadii kalaba baadiyana loo diray baadiyana ku soo dhalanay baadiyaha gobolka Togdheer ee Burco ayaan ku dhashay isaga wax ku bartay malcaamad dugsi hoose dugsi dhexe institute-kii Jarmalka Burco ku yaalay intaas ka baxay تخصصكيغو تمالنimada leydku ahaa jaamacadda Soomaaliyeed baan ka baxay 1980kii iyadana takhasuskaygu tumaal leyda baan kaga baxay korontada tumaalku waa farsamo yaqaan leyd baan kaga baxay jaamacadda kadibna waxaan noqday macallin dugsiga farsamada gacanta ee Jarmalku dhisay ku yaala magaalada Burco macallin ka noqday markaan muddo sanadii meelaha joogay dawladda Soomaaliyeed baa ay xidhay dawladda Soomaaliyeed ma rabo wax badan inaan ka sheego laakiin inta meelooda wax ku xidhi jirtay waan soo maray station police waa la igu xidhay NSS waa la igu xidhay xero gulwado waa la igu xidhay xero military waa la igu xidhay dhabarjabin waa la igu xidhay jeel waa la igu xidhay weligeena maxkamad la ima tagin mararka qaarkoodna sanadaan ku jiray mararka qaarkood baan 30 bilood ku jiray ala kulli xaal waxbarashada diineedna waxun bay ahayd in culimada Soomaaliyeed ee wadanka degan wixii aanu ka bowsanay ma jirin wadan dabadeed aanu baxay intii dambana saanu joogo wadanka Soomaaliya ayaa dagaaladii jabhaduhu ka dhaceen magaalada Burcaan joogay markii 1988 jabhadu soo gashay waqtigaas baan wadanka ka baxay Yurub iyo meelahaas aan niman xanuunsanayaan walaalana geeyay anigoo Yurub jooga dawladda Soomaaliyeedna dhacday ilaa 99kii baan deganaa Yurub March 1999 baan dib ugu soo noqday magaalada Hargeysa ilaa haddana Hargeysa aan deganay laakiin socodkayga Yurub waa tiro badan yahay 12 sanadood dama Burciya Hargeysa baan ka dhaxeeyaa laakiin waa badan yahay socodkayga aan ku noqnoqdo Yurub iyo meelaha aan ku noqdo qaab nololeedkii Soomaaliya waagii horena ee lixdanaadkiina dimuqraasi bay ahayd dimuqraasi qabiilkan uun ku salaysan haddaba aragtaan waxaan xasuustaa iyadoo 1969 68 meelaha markii doorashooyinkii dhacayeen dadku intay wadada maraanba waxa loo oran jiray dhulka yaale
ilaahay baa leh ka sokowna reer hebel baa leh saasa cirka yaal cirkiiyo dhulka la sheegay jiray hebelada jiray dawladdii kacaanka ee Soomaaliyeed markay qabsatayna scientific socialism baa la qaatay scientific socialism kuna wuxuu noqday diin la dirir annaguna dhalinyaro uun markaa waxoogaa diinta ka garatay oo aan systemka ku qanacsanayn hortaagan baanu ahayn ma jirin cilmigu sidan uu hadda u faafsan yahay oo dawladda Soomaaliyeed waxay lahayd censorship aan ogolayn kitaab aan dawladdu ogolaanin waddanka ma soo gali jirin waddanku sidan uu imika isaga furaya isagama furay diyaarada dibadda ka yimaada only xamar oo soo degi jirtay lama ogolayn waddanka inta kale diyaarad dabadeed inay ka soo degto isdaradeed wax kasta oo waddanka soo gala censorship faafreeb wax la yiraahdo soo mari jiray marka kutubtu almost mamnuuc bay ahayd dan qisaydin sheego dhowr iyo 70 anigoo dumar tafsiir u dhigaya habeenkii baan dhigi jirnay guri madow habeenku markuu dam noqdo ayaad guri tagaysaa dabeetana halkaasaad waxoogaa dhowr dumar oo la soo ururiyey tafsiir ugu akhriyaysa tafsiirkan haystay markaa waxaa kitaabkan jalaalaynka la yidhaahdo jalaalaynadii waagaa dadku haysteen iskuma rakibnayn ee waxay ahaan jireen dhowr xaashiyoodba oo isku jiri jireen dabeetana gal sare buu leeyahay ku daboolan habeenba labada xaashiyood adigaysaad kala baxaysaa oo dhowr iyo 10,000 oo mujallad ay ku jiraan يعني جارس كسيدة تان قفكو ريسيرش سمي